burco waa caasimadda labaad ee Somaliland waana magaalada ugu weyn gobolka Togdheer caasimadana u ah waxay burco dhulka ka sareysaa 130 mitir marka badda loo eego bulshada magaaladani ku nool ayaa ah bulshada labaad iyaduna sidoo kale ugu weyn amaba ugu badan dalkani Somaliland marka laga reebo bulshada caasimadda Hargeysa ku nool oo ah bulshada Somaliland ugu badan walow tiro sugan aan laga haynin shacabka ku nool magaalada Burco magaaladani waxa ay jirtay muddo aad u fog balse waxa dib loo degay 1922 markii Ingiriisku dalka gumaysanayay iyadoo markaasina saraakiil lagaga laayay waxaanu Ingiriisku sameeyay in magaaladii guud ahaanba uu gubo shacabkii halkaas ay ku noolaana ay ka guuraan magaalada Burco taariikhdaasi aan soo xusay 1922 ayay dib ugu soo noqdeen bulshadii kala duwaneed ee magaaladani deganeed Somaliland waxay ka mid tahay magaalooyinka hadda ugu casrisan dib u habeynta lagu sameeyay shacabka magaaladana ay aadka u dhiseen waa magaalo bilixsan dhulkeeduna uu siman yahay khayraad dabiiciyana leh sidoo kalena waa magaalooyinka ganacsiga ee dalkani Somaliland uu leeyahay magaaladani waxa ku yaala dhismayaal aad u dhaadheer oo maalinba maalinta ka dambaysa ku soo badanaya iyadoo shacabka reer Somaliland amba muwaadiniinta magaaladani u dhashay ay marba sii bilayaan bilicdeeda kuna soo kordhinayaan dhismayaal iyo sidoo kale fooqaq aad u dhaadheer waxaan iyaguna ka maqnayn qaybaha kala duwan ee kaabayaasha bulshada hadday noqoto wadooyinka isbitaalada iyo goobaha aadka ugu muhiimka ah shacabka waxay leedahay hudheelo aad u waaweyn oo raali geliya qof kasta oo magaaladani soo booqda amaba safar ku ah amaba dalxiis ku ah hudheeladaasi waxay qayb ka noqdeen inay kor u qaadaan ganacsiga ka jira magaaladani maadaama oo shacab badani u soo dalxiis tagaan jeclaystaana inay marun arkaan magaalada Burco dhismayaasha aad arkaysaan ama muuqaalka sare ee magaaladani kaaga muuqda waa guud ahaan siday u siman yihiin guryaha kala duwan ee magaalada Burco iyo siday u qaabaysan tahay ay u dhisan tahay haddiinu dul istaagno shacabka ku nool amaba shakhsiyaadka ka soo baxa magaaladani Burco ee ku dhasha ayaa ah dad samcad ballaaran ku leh dalkani Somaliland amaba hibo gaar ah oo lagu majeerto iyagoo saraakiil aad u tiro badan oo halgankii SNM qayb muhiima ka lahaa ay u dhasheen amaba ay ku dhasheen magaaladani Burco dawadayaal muuqaalka kooban ee daawanayseen waxaad ka daawanaysaan So Channel subscribe si like nasar ku xidhno markasta So Channel hoy waxaad u tahay hablihi nasabkii xortee